waa mid ka mid ah xayawaanada ugu caansan dunida sidoo kalena ugu caqliga badan. Tukuu waxa uu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka animalia, bahda lafdhabarleyda ah ee kordhaata, gaar ahaan bahweynta qooleyda loo yaqaano Apis. sidoo kale waxa uu ku jiraa qoyska ballaaran ee tukayaasha ee loo yaqaano Crow family. waa bahweyn shimbiro ah oo ku midaysan afka aadka u dheer iyo cidiyaha xooggan ee soo laabma, kuwaas oo badanaa guryo ka dul samaysta dhirta dushooda. bahda cilmiga saynisku waxay ugu yeeraan Corvus, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay shimbir muddo aad u dheer jiray, kaasoo leh garasho iyo garaad aad u sarreeya. waxa uu ka mid yahay haadda ama shimbiraha hilibcunka ah, kuwaasoo laga helo dhammaan qaaradaha kala duwan ee dunida. luuqadda Ingiriiska waxaa loogu yeeraa Crow, halka Carabiga loo yaqaano Alquraab. afkeena Soomaaligana tuke waxa uu gaaraa 6 ilaa 7 sano, dhererkiisuna 50 ilaa 53 sentimitir, halka uu culayskiisu gaaro 320 ilaa 600 oo garaam. waxa uu maraa 3 meerto nololeed. ugu horrayn markay isku tagaan kan labka ah iyo tan dhadiga ah, halkii mar waxay dhashaa 2 ilaa 7 ukumood, kuwaas oo ku dilaaca 18 maalmood, waxa ayna ku duulaan 60 maalmood ama 2 bilood. sidoo kale waxa uu leeyahay 80 hiddo-side. Tukuu waxa uu ku jiraa shimbiraha cuna waxyaabaha ka soo jeeda dhirta iyo xayawaanada kale, gaar ahaan maalintii, oo habeenkii tukuu waxba ma ugaarsado. sidoo kale waxa uu ku jiraa shimbiraha quuta bakhtiga ama noolayaasha dhintay ee loo yaqaano scavenger animal, kuwaas ay ka midka yihiin gorgorka iyo coomaadiga. Tukuu waa shimbir aad u dheereeya, kaasoo saacaddii jari kara 60 mayl oo u dhiganta 96 kiiloomitir. Tukuu waxa uu caan ku yahay midabka aadka u madow ee dhalaala markay cadceeddu qabato, iyo codka aadka u dheer ee u goonida ah. inkastoo jiraan midabo kale oo ay ka mid yihiin madow iyo caddaan isku jira, waxa uuna ka mid yahay xayawaanada leh dhiigga diiran ee loo yaqaano warm-blooded. Tukuu waxa uu ku jiraa shimbiraha dadcunka, gaar ahaan markay dadku dhintaan ama uu la kulmo raq meel cidla ah taala. shimbirkani waxa uu ka mid yahay shimbiraha uu Allah Qur'aanka ku sheegay, waxauna Allah u soo diray in laga barto aasida dadka, sida ku jirta suuratul Maa'ida, qisadii Qaabiil markii uu dilay walaalkii Haabiil. sidoo kale waxa uu ku jiraa 5 xayawaan ee uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam amray in la dilo haddii lagu arko dhulka xaramka ama meelo kale oo dunida ka mid ah.